lacag ma ku bixin lahayd waxbarashada نعمت بالله أنا كم بحلها صحيح ugu bixin كم بحلها anigoo layga soo qaaday laakiin adeer may kuma bixsan anigu kuma bixiye فري أكون ربطان وحكو برا Yeah. فري أنا وحكو برا بتعرفت هذا هليس may horta iminka waxaan joognaa dunia casrigan joognaa moogta aada weyn waqtigeennii horta waqtigeynu inagu wax baranay iminka rag waaweyn baynu nahay nin walba galbu leeyahay waqtigeynu inagu wax baranaynay waa laga yaabaa in marka lacag lagu bixina laakiin waqtigana joogay in waxbarasho lacag lagu bixiyo ma aaminsan وصح البنت هذا دون شيء راح برت يوتيوب كنيا يوتيوب محل youtube university iyo waxaa gelaysaa google university يوتيوب لكن فري ما لسه عقده كهرباء موبايلكي جاجركي لكن هذا تا اسكال غيرك اسكال انترنت كمان عقلك قاعد لك واحد برشيد اللي قاعد ما العقد بس ماشي معلق يوتيوب كان عكس زي We're done 20. You're live. Are we live right now? Yes, are we live? We live to go baby. yep waa ku jirnaa كجرنا Yes. We live. منين ليه ما هنا Soo dhawaada. waa toddobaadkii saddexaad mise afraad سدحاد Kii saddexaad وايد baa. مدامك يقول ونوقف في الشغل Or mid baa kasta. Hada inta sheegaya saaxiib. Mid baa waran. horta midaa fashil noqday follow naga noqday kaas ogeey Wali cilad farsamo ahayd dhankayga ma ahayn. Anagu falan kama na dhigin. كما سوى حاجة جينا هذا وصل لعبني سوى لعبة شو ناكسن isku soo noqosho wanaagsan أو ناكسن waa ku jirnaa maanta maxaa isku waafaqmaan ما أنت بحالك هذا maanta wallahi waxa inala gasho wade wax walba. Discussion halkan ku haysanay qaar قلب كارها may xooga maanta waxaan saareynaa ama falanqeyn doonaa waxbarashada saa ognahayna waxbarashada inay asaas u tahay wax walba ayada u ah laakiin angalka maanta aan ka qaadanayn waxaa waaye lacag ma ku bixin lahayd waxbarashada نعمت بالله أنا كم بحلها صحيح ugu bixin كم بحلها anigoo layga soo qaaday laakiin adeer may kuma bixsan anigu kuma bixiye فري أكون ربطان وحكو برا Yeah. فري أنا وحكو برا بتعرفت هذا هليس may horta iminka waxaan joognaa dunia casrigan joognaa moogta aada weyn waqtigeennii horta waqtigeynu inagu wax baranay iminka rag waaweyn baynu nahay nin walba galbu leeyahay waqtigeynu inagu wax baranaynay waa laga yaabaa in marka lacag lagu bixina laakiin waqtigana joogay in waxbarasho lacag lagu bixiyo ma aaminsan وصح البنت هذا دون شيء راح برت يوتيوب كنيا يوتيوب محل youtube university iyo waxaa gelaysaa google university يوتيوب لكن فري ما لسه عقده كهرباء موبايلكي جاجركي لكن هذا تا اسكال غيرك اسكال انترنت كمان عقلك قاعد لك واحد برشيد اللي قاعد ما العقد بس ماشي معلق يوتيوب كان عكس زي wax walba hadda ku qorto youtube-ka sida how to add maxaa lahaa ولا واحد جاي sokor iyo bariis la iskugu daro يا horta ويصبح حساب سكور يبريس اللي سوق دار ويصبح حساب هذا صباح صباح بدو يديسه هاد ما يوك سومالي لما بحي وحي كريان يوتيوب كسو دغاله وارد سا صباح mis سوق su'aalaysa بريس برياني maxaa ku qoray sida loo kariyo ها bariis biryani كسو بحيا من صاحبنا مالو بيسو شير جري سو حلو كريم دق بيسو شير وصاب ninkaas xoogi hay wuxuu hayaa secret kaaga dhanba hay inaad waxba karin kanin فروقها secret badan ka haya hadda dib ugu noqon mawduucan waxbarashada horta labada adduun oo hadda kala jirto waa adduun hormaray iyo adduun soo hormari rabo soo qiyaaseen soo socdo insha Allah taala adduunka saddexaad inkastoo maskaxdeena dhinac walba looga tiri laakiin aniga waxbarasho lacagan kasoo bixiyay waddanka markaan joogay markii laga reebo class koowaadka ilaa sideedaadka umaleyna intaas freeam kusoo dhigtay laakiin wixii ka dambeeyay ilaa dugsiga ka baxay lacagan dhiibay maalin حاجه سكلي بادر maxaa ku waalay maalin asxaan yar ma liigu soo koorsiyar hadda u baahdo waa xasuustaa Iyo horta waddan- hooyada ay dhiibi jirtay $7 oo koorsadana soo baxay ee plus koorsa dhigi jiro oo hardware ka xasuustaa okay ayadoo xaaladeeda adeegeeda hooyo ma iyo hooyo hadaan boo koorsadaas raba hali wallahi oo bartaan boo laakiin marka ma xasuusto lacag laga qaadayay bishii $10 laga qaadayay ma maleynaya ma xasuusto wallah waa saas saddex bilood ah saddex bilood $7 dhiibin marka waxa umalaysa waxbarashada marka wax laga dhiibo iyo marka kale labada farqi culus laakiin hadda adduunkan kale marka aan u fiirino westernka kale ama Mareykanka Europe oo kale wadamadan ah Mareykanka lacag laga dhiibo laftirkiisa laakiin Europe-ta waliba Scandinavian-kan oo qofka in waxbarashada laftirkeeda lacag lagu siisiyaa si uu wax barto laakiin wadankiiba hadda waxa jira meelo bilaasha
iskuullada dowladda kale waa bilaash laakiin dadkii maxay buunbuuninayaan kuwii privateka ahaa lacagta laga dhiibi kuwii lacagta laga dhiibiyey waana isla meesha uun wasla waxaa laga yaabaa in aan waxba isdhaamin labadan laakiin kii lacagta hala oranayo kan waxbuu lacagtu yahay inagu Soomaalideena waxyaalaha kala yaaba wallahi bilaahi runtii wax qaaliya laga oranaya waxaan waxbuu qaali u yahay sabab qaali u yahay waxba ku jira laazim wax la ku jira waxba ku jira wax qaali u yahay waxa la oranaya kan waxbuu sabab bilaash u yahay wax bilaash u yahay qaba wax friga wax ma siin diidin nacaynaba صح maxaa meel dheer u aadeen waxa ka soo qabataa la adeeg shaatiyada suuq markaa tagtid mida waxa ku arkaysaa $5 ku qoran isla noociisa aan waxba dhahamin carwadu yaala 15 ku qoran waa original baa laga oranaya laga raadin waxba mu kala duwan waxba kuma kala duwan original waxa iska qaar ka jecelna la neeryaal waxa qaaligaas ka jecelna wala neeryaal bana laakiin wadanka da u fiirin oo kaleeto iskuulada private-ka ah way ka fiican yihiin kuwa kaleeto oo dawladda maxay ugu fiican yihiin dhinaca daryeelka markii la dhaho ardayga waxaa arkaysa in la daba raacayo oo routiinka la sameeyo uu ka duwan yahay routiinka kale iskuulada ay sameeyaan ani sidaas waana arko oo u fiirsaday anigu horta ma soo dhigan iskuul dawlad ma soo dhigan laakiin xaqiiqatan ma aaminsaniinay saas ku jirto macalinka waa runtii maadadii waay isku waxan baa lagu dhigayaa midda kale buugga lagu dhigo manhajka lagu dhigo ka dawladda ay ka private-ka lagu dhigaa waa isku meeshi imtixaankii dawladda wada qaadaysa waliba hadda waliba private-ka double uu noqonaa moogtaa private-ka proofka imtixaankiisu gala kii dawladda uu gala qofki hadda kan iskuulada dawladda dhiganayn iskuulada imtixaanka weyn waa laga yaabaa in laga soo yara qaaday imtixaankii 2 3 4 5 7 laakiin eerka markii gaadho imtixaankii weynaa weyn moogtaa markaa ka gudbaysa galaas markaa taa dawladda qaadaysa iskuulku wax shaqo ku leeyahay malaha so waaya lacag u dhiibaa marka way wala dhiibaa hadii wixii isku meel hal ku iimaanaya wixii marka waxaan sheegnay waa run noqonayso inay waxa qaaligaas ka jeclaan oranno heel wax qaal u haysta inta sala laga rabaadi private bulita private oy ma arki idinka ma arkina oo maleena ana xamar aan meel xasuustay galabkii boog inta la soo qabsado oo private-ka oo socda maxaa dhigana English private ka soo English ade waa computer class kaliya waxa lagu dhiganaa waxa waaye waa English ka soo lagu barnay waa private wax kale loo dhiganay maalintii caadi iskoolka aadaysa galabtii amal waxa imanaysa private ka bugaga wadataa maxaa baranaysa English private wali hadda English ta anigu school waxaan dhigan jiray ku baxaa English ku baxaan dhigan jiray moogta marka uma baahna inta badan inaan private galo laakiin mar baan galay private inta badan wax macnaa ku fadhi habla yar baa loo tagaa runta ma sheegnaa walaa habla loo tagaa wallahi marka mar baan galay waxaan dhigtaan u marinaya bil baan dhigtay duu ma dhigan private markaana inagana jeclaan ma dhigan jirtay inay ku maqashaa laga hal bil kaliya dhigtay oo ka baxay maxaa soo noqdina ka baxday منيو ما qoftii ka tagtay sababta laga yaacay ugu dheeraaday inuu ma tagi jirin babadii sabah iyadina arko ma tagi hal bil kaliya hal shaqo ma tagi wax yar hal mar aan wax fiirinayna xagan Yurub markaan fiirino dhanka Yurub oo kale هادي أنا عسى والله حاجة أنا حكون برتي حاجة يوروب كاسم فيرين هاي يوروب نيه وحاجة اسكفريد وحيوان برنيسا وفري adiga العاب القصينية أنا على القصينية فري ولو حد ود ما قال هذا النرويج كلا قفك عنا حافظك سوق أنا هو رنتاور ما قال لو تمام ما قال هل كان عندنا سيستم كود ما قال لك حكم أنا قفك عنا سوق حافظك عنتوك سوق تساوي هذا أي شيء لكن تذكر وين وملنا ما يكون يرحته ما يجري يوم بين اللي هنا والله عادي أنا عم قرب waxa way taala cuntadii laakiin wado far cuntada way taala wado far marka okay baqa inta ka maqlay maalin way cunaano maantay waxyaalaha hilibka ku jirno kale maalmahaas way cunaan maantaas laakiin Sweden aa ognahay karaad iskuulo badan Sweden ka shaqeynaa inta badan ardayga ma bal rabo inuu tada kale waa la qiimeeyay xataa ardayga markuu u imaana iskuulka waxa loo sheegay waxa uu qaybta cuntada waxa la ogaanaa waxyaabo uu cunin iyo waxa uu allergic yahay oo lagu daryeelaya markan waxa la doonayaa inaad sida ugu wanaagsan wax ku baran karto baran oo yaraan waliba adiga lagu qaraacin wadankii free farsh free xaga leeyahay kaar bas free waliba lagu siiyay kaar bas free oo meesha dadku ku tagi karto niyo soo tahriiga yiro iskiin ما qofki marka aan fiirina marka qofka wadanka ruux soo tahriiga waxa uu diiday taalo kale la siiyay la maro dadkan farqi yar raadinayna qofkan lacag bixinay wadanka joogay oo dagaal ku soo jiray ama la soo tumay ama wax lagu soo ama xaalad xun ku soo wax baranay qofka meeshaan oo xataa baska xataa free loo siinaa baska ku kaar ku soo raaci la maxaa u dhaxay farqiga u dhaxay markii la dhanka guusha markii laga soo qaado
guusha dee mar walba waxa saa aniga aaminsanahay qofka markuu wax Yurub ku barto iyo qofka Afrika wax ku barto macnaha isu dhow maaha walow laga yaabo qofka Afrika wax ku barto inuu ka macnaha ka fariidsan yahay ama ka wanaagsan ka wax barasho fiican yahay qofka Yurub joog qofka Afrika wax ku bartay ka wax barashada valid haddii ay tahay macnaha caadi dadka soo qad qofka macnaha wadanka jooga oo wax bartay macnaha ma sha Allah free iyo qof xaggan jooga wax barashiisa aysan heer sar gaarsiisneen marka is barbar dhig waliba xalaqaani qof xaggan jooga marka asmaskiin marka loo fiiriyo waxa laga rabaa kaliya qofka inuu wax ku bartay magacaas laga rabaa magacaas wax weyn magacaas gudmay waa maskixiyan way ku jirtaa qodobadan ka hadli doona kamid ah xataa ardayga markuu meelahan joogo oo heerka ugu dambeeyay markuu soo gaaro qaabab loo kala bixiyo may laakiin wadanka marka uu soo noqon oo kale waxa laga yaabaa 8 saacadood ka badan qofku wax barana lacag uu ku bixina inkastoo manhaj sax uu sii jirin laakiin wax uu baranayo qofka inta joogo way ka sahlan tahay oo wadooyinka oo Yurub marka laga isticmaalo kale ardayga iskuulka way ka sahlan tahay kan xagga ah waxa laga yaabaa isku dhufasho xisaaba inuu qofka xagga u maray 5 dariiqo oo dhaadheer ah laakiin qofka inta joogo inuu heli karo halka ugu fudud meel yar wanaagsan baa laga tusayaa halka laakiin waxa laga tusayaa wadada ka adagta midna ku fiir xitaa waxa laga yaabaa ardayga oo Afrika joogo kaleeto kulli sabuurada lagu qoraa sheekh halkaas uu ka koobiyeyna kulli laakiin kan inta joogo bug yar oo iska wata bugiisu ka koobiyeysan haduu rabo ka tagaa haduu rabo calculatorka xitaa waxyaalaha xisaabta anigu dad badan oo la qaban maleynaya meehi reer xisaab iyo waxa anigu waan kala xanaaqnaa baasha waan kala meeraysan inta kala meeraysan karna marka wadankii si ilaahay og yahay ku badbaaday markaan iskuulka aad ka baxay dadraqay muddo ka sheekaysan ku laakiin waan badbaaday halkan aan imi hadara in xisaabtii duu dhigtay noqotay madaxan markaas aan xisaabtii barigiisii adogeed ku badbaaday hadii ku badbaaday hadii imtixaan dambe iyo qiimeyn dambe iyo shay kala gelisaa wasal wax iskala dhibisaan iyo calculator value wata fadlan azwaan isaaba oo qabso azwaan daas saasadu ka shaqaysa sama ka shaqayn san uga shaqeyn kana ka fuuday meel kala fuuday laga furo dhowr wado waxa laga saaray qashka marka uu maleena inay ka fiican tahay horta si way uga yar wanaagsanto halkan waxa la isku dayaa in sida ugu fudud ee wax lagu bari karo lagu baro iyadoo aan lagu dhangadeen iyadoo lagu maslaxayo dilow ma jiro horta dilowgaas ku soo xasuustay aniga maalin imtixaan fiisiga ku geyn wadankii marka waxa la sameeyaa imtixaanka markii la galayo waa kursi mission ah kursiga lagu qof ku fadhiisanaysa imtixaanka adiga soo marka mid xagga iga fadhiyo saaxiibkii ah wuxuu sameeyay inuu isku dayo wax qasho buugi fiisikiiska wax lagu qornay inuu soo qaadayo dhabarka soo gashtay imtixaanka marka soo fiirsanay wuxuu sameeyay miiska xagga hoose inuu soo u kala balaqay buug noo dhigay buug marka soo dhigay aniga ma ogeyn dee ninkan buug wata macallinkii imtixaanka naga qaadiyo meelaha wareegaya wuxuu arkay ninkan odaygo miiska hoostiisa oo fiirinaya buug qashaya ninka macallinkii markuu ninka buugga arkay iyo ninkii uu arkay anigoo meesha la fadhiyay wuxuu u qaatay inaan aniga kula jiro filinkan oo la qashayo buugga labadana waan la kixiyay buugga la qaaday waan la garaacay baxal lagu yiri imtixaankii ma gelin marka fashilkii Afrika hadda xaggan camal hadii la qashlo ugu qabto waxa laga akhriyay imtixaankaagii dib u galaysaa macnaha sameeyay mar walba sameeyay waa galaysaa laakiin cid ku jireysay dee ku dhaysa baa imtixaan ma galaysaa lamana waxaad moodaa halkan iyo ciido mustaqbalka fikirto imtixaanka waad iska galaysaa waxaan iska dhamay unba maskaxda kaaga jirtay moogtahay laakiin halkan adaa xitaa cidna ku dilayn iyadoo halkan lagu dilay xitaa waxa uu iska dhameeyo laakiin halkan iyadoo cidna ku dilayn baa waxaad sameynaysaa haddana waxaagii adaa u dadaali because waxaad doonaysaa inaad sida ugu wanaagsan iskuulka uga bixi karto aad uga baxday moogtahay laakiin gadaanna ka fiiri marka ugu dambeys waxaa arkaysaa ardayga haddii uusan soo dhammaysan wax badan uu iskuulka xilligiisana ka dhammaado xataa weli jaanis soo haystaa oo dadka waaweyn la sii geynaa korsiyar uu diyaarina uu ku shaqaysan karo loogama haray calashan meel cidla loogama tagay qofka inta ma dhacday laga waxbarashada kuma ways qodob hadaaya qosol badan ku dhex jiray ardayda wadamada Yurub jooga ma dhacaan ali waa saadi ma dhacaan anigu kulim ta arkay in qof la dilacsiyo ma ahan waliba qof dhacay ma arkayst bartad ku gaasay inuu qof dhacay ma arkayst ilaa arkaysid ma ogaay quraaca ardaygii fasalkan kula dhiganay fasalka kale kula dhiganay shahaadadii un baa magacii lagu qorayaa F inuu helay macnaha waa qof dhacay oo kale macnaha xiisadii ka dhacay baa lagu qorayaa F oo ah inuu qofkan xiisad maadadii macnaha points laga reebo ka hoos oo kale markaan isagii waxa og markaana macallimiintiisii waalidkiisa hadii waalidku ka leeyahay hadii iskuul wada dhigan glass wada dhigano aduu moogida dhacday aniguna moogina baas ilaa isu sheegtaan mooyee ilaa isu sheegno mooyee marka mar walba waa isla soconaynaa markii iskuulka ka baxayna iskuulka la wada baxaya laakiin hadda iskoolada sare kale waxa la siiyaa qofkii
finalka marka imtixaanku maray u dambe taa waa la ogaan karaa macnaha qofkii wuu helayaa maxay helay natiijo wuu helayaa mar walba laakiin natiijadii inay fiican tahay inuu xun tahay wuu ogaan karaa macnaha marka wili waxay dhahaan marka iskuulka final maanta u dambeysay iskuulka laga baxayo hafuri bay ku oranayaan ilaa iyo xafada ka tagto iska baasha meesha ku socdo laba rabo على يا واضح حفلة دح جوجتا laga qabto waxaa jira wadamo badan oo aasiyada fog oo kaleeto maraykanka qaybo ka mid ah xataa ardaygaba inta badan inuu log inuu leeyahay meeshuu kasoo arki kara imtixaankiisana waa lasoo sameeya laakiin africa boorka lagu soo dhajiya saaxib hebel wuu dhacay hebel wuu baasay wallahi xibta subxaan adduunka markii wili ina taajaleed barwaaqay markii horteeda saa lagu dhag qofku wuu hooseeya ayana soo ku jirta waa marka halka mid private ka aadaysa laakiin maskaxiyan hadaa ka fiirino ardayga dadka public horta inta lagu soo dhajiyo wariyaa waa dhacda lagu soo qoray ardayga loo qariyay baqshada loo geliyo guriga ku fiiri asoo dhacsan horta baqshada u dhaxeeya isleedahay waxa u dhaxeeyo farqi weyn hadda waa inta adduunka boo dhaxaysa haddii warqada lagu xiro bashqad lagu rido gurigaaga la tagto furto sirtiis loo qariyaa haddii xataa negative ay noqoto waa dhacday noqoto way caadi waxa iska qaadaysa adiga ugu malahan waqti law adiga iyo ninkii soo qoray maxay shahaadadii waa khalaas labadin waa private laakiin boorka lagu soo dhajiyo umad ilaahay ha timaado meeshii waxa waa idinka samiir aha waxa waa private ka ku laabto وعيب توازني ساي ما كانت اكتو هلك سرمك اسكيك تعال افتح انا زولو كسعيا كلمات كويزو بس تعال كويزو كنت لي تفرو ساعد قال لا لا weli dadka qaarkood maba sii sugaan ba afar shan ma waayo lugta fur هذا الموقت هذا سيد عادي افريقيا meelaha waxa la xisaabiyaan saddex qof oo horeeyay macnaha imtixaanka macnaha fasalka waa kaalinta koowaad kaalintaad iyo kaalinta qofkii kaalinta afraad soo galay wixii ka hooseeya fi amaan allah may su'aalkan waadan qaba muu malaysa marka waalidka afrika jooga laftirkiisa inay cadaadis saarayaan ciyaalkii ay leeyihiin oo haduusa maxaa laga yaabaa ardayga keenin kaalinta kuwaad labaad afraad oo galin saddexaad galin inuu waalidka laftirkiisa cadaadiska dhankaas kaga imaana muu malaysa oo macnaha natiijada dambe waalidka ay dhahaan calaashaan warna naga tag wax ma tarayo damiinaad meeqa idin sheega meeqaan dhahay kan iskuulku iska dhex baraaqay afrika waa sax halka marka afrika wadankii waa qasab laakiin xagan waalidku inuu ogeyn laga yaabo shahaadada wadid may laakiin halkan aday waalidkaagu ku arkaan inaad hoos u dhacday adiga laguma qabsanayo maamulka macalinka la qabsanaya xagan halkan macalinka la qabsanaya halkan adoo lacag ka bixiyaad ilmahaaga qabsanaysa marka sida ilmaha ku soo jeesin saar leedahay maxaad u sameeyay هذا حسب موضوع وراك هذلين وحير السو شابه وحاجرت markii xagga loo noqdo wadankii oo kaleete iyo markii inta loo fiiriyo kale ardayga waxa arkaysa asagoo dhacay laftirkiisa inuu macallinkii dhahayo waa sameeyay meel fiican ah sameeyay waa dadaali kartaa hada isku day sanadka dambe waa soo socotaa xagga waxa laga yaabaa qofkii oo keenay 70% inuu dhaho la ilaaha illa ma qaadin sheegay kan wax ma tara ayda ka waran xagga niidana in niid li sudis qofkii asoo dhacay waliba iyo in qofkii oo dadaal fiican sameeyay la lahaa ayda ma taam wax ma hayst waxan taayada ma waa xanuun maaha haddii niyadda lagu dhiso adoo waxa meesha ku haynin marka dambe intaad iska dhacdo ka soo jiibsatay sugaysa in niyadda lagu dhiso nagastaa ma jadi waa ogaanaysaa niyad wax lagu dhisay waxa way macnaha waa baraarujin kale uu leeyahay waa dadaashay laakiin sii wad next time waxa sii wad dhicitaanka sii wad in halka sii joogto kana soo dadaal saro soo kac next time waxa laga rabaa inta keentay in ka fiican keentay laakiin qofkii markuu zero keeda سي قرا سيرو كنت ارد اسكو نقول نوي باتو مرني لا فصل دحديسه markuu tartan jiro kala aniga haduu samir iga qaado kalanta waa dagaalan gala ma soconays waa dhiirgelin dhexda moogta ardayda dhexdooda laakiin mar waxaan qabaa hadii waalidka uu ciyaalkiisa baaga uu ka haysto cunugi uu dhahay waalidkayga isi caawinay oo dhahay wariyo waa dadaasho waa sameeyay calaasha ama hadaan sameyn xitaa ila sii dadaalay وانا waxaa saad walaalkay kale fasalka dam markuu ugu dambeey dhiganay ana xoog wax u saaray hadafkaygu wuxuu ahaa inuu natiijo fiican la imaado hadda markuu jaamacad bilaabay markii uu wadankan kale ma ahan waxay noqonay markii waalidku inuu ku dadaalo u dhaho inuu ardaygaas cunugiis uu private kala sii aado si asagoo diyaarsan hadhooti uu yaraan xitaa uu ku soo badbaado may arinta natiijadan ku soo noqono markii darbiga lagu soo dhajiyo adigiyo sanadkan aniga horta markii eed kan xasuusta darbiga lagu soo dhajiyay waan badbaaday
ilaah runta jecel isaan ku badbaadina ma garanay laakiin intii kale ma xasuusto walahi 7kii marka meelaha ma xasuusto laakiin 8kii waan xasuustaayo waxaan ku baxay point fiican baa ku baxay dadka gobolka ugu sareeyay ma ahayn dadka iskuulka ugu sareeyay ma ahayn laakiin waxa iska ahaa nolol baa iska ahaa mana sareyn halka hoose leegama baadhino meelaha hoose leegama eegin laakiin dhexda habluhu si xun ima eegin aniga waa inta si xun leeyma eegin aniga natiijada wala natiijada marka darbiga lagu soo dhijiyo xanuun laakiin أنا مركز اللي قلته مكان بوستيفايد كان يعني كنا قلنا وحبرشوا بلاش بمشين بلاش تقدر أو كنا قلنا هدي أنا وحنقبه هدي ودن كاس وكجير ودن سيستم لا ودولة دي كجير تديته أنت بدون تبلاش إن لقيت لي ويكوها بونت محيل موادن عنشور تلاقي هذا وإن دولتكم بحساب أديك كلت هذا عنشور أنا لقي هذا وكلت عنشور تحكم حين دولة دي ودوينك على ودسا وحبرشدي على وسمينا عفماتك على وسمينا أرضي مركو حق ليه إنه هلي كرو ودن سومالي إنه يجري تواجه نمضي وكذا إلا جامعة اللي كان أروح على استاد مال اللي يجي كنا أو هذا ولا ياب إنه معقول هنا تاي أو قاعد حتى رئيس الوزراء إثيوبيا ميلا زناوي جامعة مقدسين وكسبه وحكي لي أنا علشان وحقها جامعة وقفي عن أفريقيا the best يسومرت مركو حد ريمي كرتا ودن كواهر بربرسنا أنتوا بربرسنا مركو لقى صوتك لكن waxbarashada bilaash ahaan jirtay sidee dadka Afrika inta badan Afrika u badan oo aanay dawladahooda lahayn waxbarasho bilaash ama ay leeyihiin laakiin ay ku private sareeyaan quality lahayn sidee quality-ka kuwan uga quality fiican kara waxay uga fiican kuwa inta marka aan fiiriyo dawladdu uga fiican kara kuwa private hada fiiri wadankan private way ku jir iskuulo badan private way jiraan hada iskuul fasha kala magaal xaafadii u dhow waxa jirta private way laakiin quality markii la dhoo kan dawladda manhajkiisa wixiisa dayactirkiisa ardayga dhinac walba loo daba raacayo oo routiinkiisa dhan loo soo fiirinay carton learning dhan la wada fiirinay mar walba kan dawladda ka fiican maxay uga fiican tahay dawladda waxay ku bixisaa fanka ugu badan dhaqaal fiican ku bixisaa waa markaa ku bixisa dadani Kenya cabaar joogan xasuusanay macallimiinta Kenya markii iskuuladooda ay ku wada bixiyaan iskuulada dawladda way ka fiican kuwa kale maxay uga fiican yihiin cuntada nidaamkooda waa xun laakiin waxbarashada markii la dhaho the best aad why waxaan ku xasuustaa wiil Soomaali ah 3 sano ugu dambeysay Soomaalida kaalinta ku wadgalaysa Soomaali Kenyaanka jaamacadaha firiya lagu wada helay maxaa yeelaysaas dawladda xoog waxay ku saartay in macallimiinta ay quality seminar free la siiyo oo iskuulada la sameeyo marka in waxbarashada ay free ku noqoto mar walba dawladda wadankaas maamusho ama mas'uuliyadda qaadanayso hadda Kenya waxay free miya waxbarashada free waa waxa arkaysa isku dhagan yihiin inta waxa arkaysa iskuul yar private ah oo Soomaalida inta badan private ka sameeyay laakiin muwaadiniinta Kenyaanka ah iskuulada Kenyaanka aadan ma way ka jiraan wadamo badan way jiraan laakiin kuwii private ka ba xoog badan moogti kuwii private aad xoog badan marka maxaa isku raacnaa in bilaash laga dhigo sina bilaash laga dhigo ani waxaan qabaa bilaash laga dhigo dawlad walbana oo wadanka ay joogto anaga afka Soomaaliga ku hadlayna dawladda Soomaali ku wada hadasho dhan waa inay xoog saartaa muwaadinka xaq u leeyahay dhan in la siin karo canshuurta laga qaado qofka muwaadinka suuqa fadhiyo kan dukaanlaha ah kan dharka banaanka la fadhiyo muwaadiniinta canshuurta laga wada qaado waa in lagu wada sameyn karaa adeega waxbarashada caafimaadka wadooyinka inta la heli karo dhan waa wixii isku celiya mushaarka qaadad fiir boqolkiiba 60 markii waxa boqolkiiba 60 laga gooyaa 33 inta ugu badan meeqa intee ku kala baxda ma aragtay booliiska iyo dabdamiskii iskoolkii dhaqaatiirtii isbitaalkii waxaas ku bixin marka adiga waa bulshadii kula wada ku soo noq adeega bulshada alla waa waxyaabaha dawladaha adduunka waxyaabaha ku kala hormaraan waxa kamid ah mar walba oo dadka muwaadiniintaada ay wax bartaan mar walba wadankaagan uu hormaro meel dheer maxaba ka adaa waxaa fiirinaya wadankan waxaa waajib ah ardayga markuu 1 sano gaaro iskuulka xanaanada automatic uu aada asaas ka xaadiranaya maxaa u geed waalidkii meel kale ma sameyn karo hadduu waalidka shaqo rabin xitaa cunugii ma la fadhina guriga ciyaalkii weliba meelahan la yaabaniyo anigu waxbarashadii iskuulkii waxaa waanu kala wareegnaa moogta ciyaalkii la kooda yaabis iskuulka ku sida niyo miyaan hurdo qabay iska saxadni waxaad ka saaraysaa iskuulka waxa lagu siiyo lagu dhigan fahmaa ciyaal waa waliba Soomaali marka u fiiran dhalinyaro badan oo meel fiican ka wada gaarin jiraan wadamadan Europe oo dhan waxbarta wax lagu gaara waxbarta aan maxay alaabtii oo waxa jirtay tartan oo xamar lagu qaban jiray waxbarta aan barwaaqan gaarin markii wax la barto
waxbarta aan barwaaqo gaarin aan barwaaqo gaadhnay ama adna waxaan leeyahay waxbarta oo qaan gaadheen waa soo gunaanadayna insha allah kule waxaa dardaaranka ugu dambeeya oo isa siinayna waxaa waay keliya an waxaan dhihi lahaa dowlad walba ama wax walba oo adduunka ka jirta waa inay xooga saartaa qaabka wax lagu baran lahaa dowladdan yaa wax laga sugin mar walba an waxaan qabaa waalidka laftirkiisa waa inuu xoog ugu horeeya u saaraa war bahasha bilaash ka dhigan iyo meelahaas isaga jirta intaan laydin ka yaacin aniga qofka shaqsiga dhihi lahaa inuu qofku inuu asagana dadaalaa oo mataqaanaa siduu waxbarasho ku heli lahaa waalidkii iyo caruurtii mustaqbalka waa in laga fikiraa wax barto dadaala insha allah heeraan gaarinay mar anu horta kuwan dhala anaa wax u dhiganaya macalin iyo iskuul waxba geyn maayo intay igu jirto baan ku shubaya laakiin bulshadii ka baxayan hadhada ku xisaabsan waxaa barto bay ku dhaqmayaan isaan u dhaqman bay u dhaqmayaan isaan u hadlan bay u hadlayaan ka bax meesha wariyaha soo koobno waa soo koobena insha allah toddobaadkan saasaan kusoo koobeynaa kulle wixii taliya tusaale qabtiin commentiga waa kusoo dhiibi kartiin emailka waa noo soo diri kartiin wixii su'aalo qabtiin mawduuca isleediin mawduucaas waa kofargareynayna diyaar alaabta sheerkii maxaa ka tirin sheerkii maamooyinka soo fadhaa nala socdo maxay nagu soo biiro dadka cusub waxay leenahay welcome to Wardon 20 like share comment kusoo dhawaada mar labaad mar saddexaad gacmo furan kanaalkiina le waay mininkiina le waay toddobaad walba dawtar raasida dawa assalaamu calaykum waa ku daayay